magaalada Boorama waa magaalo qadiimi ah oo aad u da'weyn waxayna isku da'yihiin magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Magaalada Boorama waxaa ku nool maanta dad lagu qiyaasay 950,000 oo qof. Haddaan u soo noqdo dulucdii qoraalkaygan, magaalada Boorama waxaa deegaan ahaan degi jiray laba beelood oo ka mid ah beelaha Gadabuursi, kuwaas oo kala ah reer Ugaas iyo Jibriil Yoonis. magaalada dhinaceega bari iyo koonfureed waxaa degi jiray reer Ugaas, dhinaceega galbeed iyo waqooyina waxaa degi jiray Jibriil Yoonis. oo sidaasi ay tahay ayaa dhammaan waxa isugu yimid beelihii Gadabuursi oo dhan. magaalada Boorama waxay ku taallaa xadka Itoobiya oo ka mara dhinaca buurta Sow. magaalada Boorama cid kale oo deegaan rasmi ah u sheegan kartaa Boorama ma jirto. waxa kale beelaha Samaroonku waxay ka tafiirmeen Sheekh Samaroon oo magaciisa saxda ah uu ahaa Sheekh Maxamuud. beelaha Samaroon waxay ka soo jeedaan asal ahaan dadkii loogu yimiday waqooyiga Soomaaliya, haddana la yiraahdo Somaliland. si kastaba ha ahaatee, beelaha Samaroon waxay tan iyo qarniyo badan ahaayeen dad aad u horumarsan oo leh ilbaaxnimo ka sarreysa bulshooyinkii ay isku waqtiga ahaayeen, waxayna lahaayeen maamulo boqortooyo, saldanado, dowlado kala duwan, kuwaas oo ka mid ahaa boqortooyadii Adal, sidoo kale loo yaqaan saldanadii Cadal, boqortooyadii Camuud iyo kuwo kaleba. ahaan beelaha Samaroonku waa bulshooyin xadaarad hore u soo lahaa, isla markaana shacabka Soomaaliyeed dhexdooda looga yaqaan dadka nabadda iyo hooyga aqoonta. beeshu waxay aad ugu wanaagsan tahay waxbarashada, aqoonta diiniga iyo maadiga ah. magaalada Boorama waxaa ku yaala tiro badan oo jaamacado ah iyo goobo waxbarasho, kuwaas oo ka mid ah jaamacadihii koowaad ee laga furay Cariga Soomaaliyeed kadib dagaaladii sokeeye. waa jaamacadda Camuud iyo jaamacadda El American. tiro badan oo 20 dugsi sare ah iyo 100 dugsi oo hoose dhexe ah. aynu yaro milicsano geeska Afrika, waddanka Eritrea waxaa jira qowmiyad la dhaho Saaho, qoomkaas oo hoos timaada beel la dhaho Gadabuur. beeshaas asal ahaan waxa ay ka soo jeedaan beelweynta Gadabuursi ama Samaroon, sida aqoonyahanka Eritrea ay ku qoreen buugga la dhaho The Saaho of Eritrea. beelaha Gadabuursi waxay si rasmi ah u degaan oo aad ugu badan yihiin, isla markaana iska leeyihiin Somaliland. sidoo kale beeshu waxay deegaan rasmi ah ku leeyihiin gobollo ka mid ah waddanka Itoobiya iyo Djibouti.